haddaba income statementiga markii la diyaarinayo labada habkan periodica iyo habkan perpetualka income statementigiisa qaabka loo diyaariyo xogaa yar way kala duwan yihiin salesko kale 84,000 salesko kale 84,000 taas farqi kuma jiro waa netki waa markii laga jaro sales return iyo sales discount markii aan ka jarno wixinada soo baxo ayay noqonaysaa akoonkii marginal inventoryga 75,000 ayaa beginningkii noo taalay waa nidaamkan periodica kadibna waxaan soo iibinay 50,000 oo neda waxa laga wadaa wixii soo iibsatay marka u geysid wixii xamaaliya marka ka jirtay wixii discount lagu sameeyay wixii badeeca celisid waxay noqonaysaa net purchases ayaa loo yaqaanaa intaas markii la isku wada geeyo waa cost of goods available for sale waa badeecad u diyaarsan in la iibiyo waa wixii ku yaalay oo loo geeyay waxa soo iibsatay sanadka waxa laga jarayaa badeecadii la soo tiriyay oo loo yaqaan ending inventory waa 63,200 ayaa laga jarayaa meeshaas waxa soo baxaya badeecadii la iibiyay sanadka wixii ku fadhiday waxayna gaaraysaa 61,800 waxa laga sii jarayaa saleska si loo helo gross profit-kii oo 22,200 nidaamkan perpetualka saleska waxba isma bedelayo oo 84,000 waana net kadibna cost of goods sold-ka automatically hore ayaa ka haysataa because of account ahaan ayuu kugu diyaarsan yahay oo badeecada markaa iibinaysa hore ayaa ka qoraysay badeecadana iibinaysa lafaha ay kugu fadhida account-kii cost of goods sold-ka debit-kiisana ku shubaysay 61,800 meeshan periodiga waa la raadiyaa oo beginningkii ayaa waxa ku daraysaa purchaseska oo ah net purchaseska kadib waxa ka jaraysaa inventoryga oo la soo tiriyay amba ending inventory wax loo yaqaano wixii baqaar ku yaala ka bacdi ayaa cost of goods sold-ka helaysaa laakiin nidaamkan perpetualka account ahaan uu diyaarsan yahay mar walba wax iibisid account-kaas lacagtiisa waa ku shubaysay hore ayaa iskugu soo geynaysaa hore ayaa ka soo qaadanaysaa balance-giisa labadaas hadii la kala jaro gross profit-ka wuxuu noqonayaa 22,200